la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 baaqin waa barashada dadweynaha waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دوادا برنامج كحساب بدن ترتك على أبورك التكنولوجيا دا سنة كلابد كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجو ترى جلي رجلينتا أقوياء كي يدليرت كل دوان جودهم با قبل كل دوان السومال لان الدنا إسلامك حسنا برتي أقوانت التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسيا إسلامك حسنا مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bankiga caalamiga ah ee Premier Bank wana barnaamij ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan iyo ku guuleysan doona lacag gaadhaysa $18,000 oo lacagta Mareykanka ah waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee يوكا بوكتي باقين وا برشدا ددوينها باقين وا برشدا ددوينها إلا باهيايو لبالارياي إلا باهيايو لبالارياي بلانتين وا بلانتين وا بلانتين وا بلانتين وا boqolkiiba boqol uga iyo qalin lagu baratama waxaan jeclahay in qaybtiin oo ah qaybtii ugu xisaab badneed baynu soo gaarnay waqtigan waa qaybtii practical ka ahayd ama ay tusoo taabsi in barnaamij koox walba soo bandhigto wixii ay sharaxayeen ama barnaamijkii ay afhaan soo bandhigeen in ay bulshada tusaan waxa barnaamijkan habeenkan caawa ku tartami doona saddex kooxood oo runtii aan rajeynayay inay soo bandhigi doonaan barnaamijyo ay bulshada ka faa'iido waa kooxda Elite Software kooxda kale Charteris iyo kooxda West Tech dhamaantood guul baa u rajeenaya waxay halkan ku kala qaadi doonaa caawa calafkooda waxaan u yeeri doonaa teamka la magac baxay Elite Software waxaan jeclahay halkan yimaadaan kadibna wixii ay ka shaqeynayaan ama barnaamijkii hal-abuureen inayna tusaan systemku qaabku u shaqeynayo iyo sida uu macquulka u yahay inuu hirgalo waan soo dhaweynayaa kooxda Elite Software bismillahir rahmaanir rahiim qaybta webka systemka markaan gudagalno waxa qofka soo bixi doona interface noocana oo halku ka gali doono oo qofka beerolaha iyo qofka kale ganacsadihiiba halka iska diiwaan gelin doonaan bismillah qofka beerolaha kale wuxuu iska diiwaan gelinayaa halka create account samaysa account ka deeto xogtiisa ay kamid tahay halkan ayuu diiwaan gelin doonaa wuxuu gelin doonaa xogta nooca ay kamid tahay sidoo kale isagoo dooran doona sawir oo profile u haan doona sidoo kale halkan wuxuu ka dooran doonaa inuu yahay beerole qofku oo si ugu ogolaado inuu yeelan doono featureska soo markuu wuxuu ku ridaar garan doonaa qofka beerole markuu login sameeyo wuxuu arki doonaa dashboard noocana oo uu isagu khudaarta soo galiyay iyo wuxuu sidoo kale arki doonaa khudaarta iyo dalagga inta kale ay soo galiyeen beeroleyaasha la mid ahi isaguna sidoo kale wuxuu soo gelin doonaa dalagga beertiisa halkan ayuu ka soo gelin doonaa dalagga beertiisa isagoo nooca khudaarta soo gelin doona doonaya tusaale kale aan idhaa xadiga uu ka hayo ya cabirkeeda oo ka cabiran tusaale kale aan idhaahdo wuxuu soo gelin sidoo kale uu soo gelin doonaa khudaartiisa wuxuu kala yeelan doonaa menu uu kala socon karo waxyaabuhu soo geliyay iyo dhamaan khudaartiisa halka uu kala socon doono sidoo kale waxaan u sameynay qofka dhibaatooyinka inta badan haysan jiray ee la kulmi jiray waxa kamid ahaa inaanu inta badan uu xisaabo badan ay ka lumi jireen markuu muddo badan soo diro xisaabtii
so waxaan u sameynay qayb computerized accounting oo tusaale maalinba intuu soo diray kale uu soo gelin karo so halkaa reportka wuxuu samaysan doonaa report tusaale kale maanta hadduu diray oo kale hadduu tusaale kale tamaandho kala diray ay hay'adoo kale 20 xabo kale 20 saxaabo kala diray tusaale kale 30 kun oo kale report yaro si fudud ugu sameynaya si fudud ugu kaydinaya xogtiisa ayuu samaysan doonaa oo hadhow la daabacan karo si hadhow cidii uu khudaartiisa ku dhici jirtay uu la baxo uu yiraahdo adeegaygu intaas kale waxa soo kale halkan wuxuu kala socon doonaa gawaarida ku jira systemka oo kale halkan waa ta ugu muhiimsan oo ah qiimihii saxda ah inuu la socon karo qofka beerolihii ee maalinba suuqa khudaartii halkii ka marisay qofka ganacsadihii wuxuu soo kala si lamida u arki doonaa dhammaan waxyaabihii la soo geliyay khudaartii la soo geliyay goobaha laga soo geliyay cidda soo gelisay sidoo kale halka waxa ka muuqan doona search criteria ku baari doono dhammaan magaca khudaartu doonayo sidoo kale wuxuu ku dhufan doonaa dhammaan program doonayo isagoo si uu dhammaan informationkeedii dhammaystiran uu arki karo sidoo kale wuxuu si fudud uu arki karaa inuu maapkeeda kale tago meesha doonayo maapkeeda hadduu tusaale kale marka mobilka isticmaali kale sidoo wuxuu sameeyaa inuu nearby ku search gareeyo korba beerta ugu dhow uu si fudud ku arki karo isagoo beerta xogteeda si fudud ku heli kara sidoo kale isaguna wuxuu arki karaa qiimaha khudaartu ay ka marayso dalka sidoo kale logistic ama gawaadhidii ku jiray systemka intaasaan kusoo gabagabeynaa waxaan marka la jecelahay daawadayaal inaan soo dhaweyno kooxda labaad iyaguna soo bandhigi doono bulshada halkan aan kula daawan doono bal systemkii ay sameeyeen iyo sida uu shaqeynayo waa kooxda job chatteris on challenge halka soo fadhiistaan kadibna ay nala wadaagaan nidaamka uu shaqeynayo barnaamijkii halkan ay ku difaacdeen ay ku soo bandhigeen in uu yahay barnaamij suurtagal ah waan soo dhaweynaya kooxda job chatteris soo dhawaada waxaad haystaan 5 daqiiqo kale oo ah inaad uga faa'iideysataan in shaqadaad qabanaysaan ama shaqadaad soo bandhigtay halabuurkaad ku samaysaan inaad tustaan nidaamka uu shaqeynayso horta waxaan marka wasaan laba qaab la iskaga diiwaangelin karaa intaan diiwaangelinta waxaan u gelin halkan waad aragtaan analyzing-ka oo kale marka waxa jira wax badan la yiraahdo ama dadka qaar ay aaminsan yihiin PHP Python to kaliya in analyzing-ki waxa data analyzing-ka ku wanaagsantahay laakiin qaybta data analyzing-ku PHP Python to ma qusayso webka waa qayb ka madax banaan luqadaha kale ee maxay sida Java qaybteeda maxay website-yada ama PHP do kale loo adeegsan karaa waxyaabo yar oo analysis oo maxay ama data lagu soo saaro sida halkan macluumaad ka muuqdaba 3 country waa la iska soo diiwaan galiyay 4 company waa diiwaan galiyay adigu waad aragtaan yaa waxba ku habsaamin waxaan ugu horreyn ku geli doonaa waqtiga ugu yar awoodeed barnaamijkan aan doonayna faa'iidooyinkiisa kale aan sii sharaxo ciwaanna aan hore u sameeynay kaliya marka doonaysa inaad saweyso waxaad tagaysaa halkaas aan job seeker hadaad tahay qof maxay shakhsiya ayaa taabanaysaa hadaad tahay company inaad kamidaysa taabanaysaa related companies ayaa marka hore halkan kuu soo galaysa aragtaan sidebarkaasina waxaad kala soconaysaa notification-kaadii oo kale history-gii iyo department-iga marka idin leeyahayna waa qaybta idin lahaa shaqaalaha iyagoo goobta shaqada ka maqan ayaa hab online dhaqdhaqaaqa shaqada qaab software ee ula socon karaan iyo flowers-kaadi waa taan idin system-kan wuxuu leeyahay qaybaha social media ugu wanaagsan oo kale sergeant oo kale hadda waa ka tusaalahan haddii qofkii shaqada la soo xayeysiiyay markuu codsanayo wax kale uma baahna annaga waxaan isticmaalnay PHP iyo JavaScript library-da gaar ahaan jQuery Ajax kuwaas oo waliba ka caawinayo in page-ka qofka markuu isticmaalayo iyadoo data badan aan ka bixin waqti badan aan ka bixin browser-kan aan reload isku dirin in xogta la soo saari karo markiiba tusaalahan apply this job markaan raahno waqti yar kooban ay qaadaysan xisaab xagan imka macluumaad badan kuma jiro laakiin shaqo macluumaad badan aan ku soo xayeysiinay tusaalahan qoraal badan oo qurux badan taasoo kale hadaan ku dhufano waa ka halkan waad kala jaad gareyn kartaa tusaale ahaan shirkadii waxaad oran kartaa halkaas kala jaad gareyn kartaa shaqadana sidaas aad u codsanaysaa wax page-kan oo saad imka aragtaan wax reload isku ma diraayo hadaan ka sii gudbo sergeant hadaan galo users ayaa search gareyn kartaa ama waxa search gareyn kartaa job ayaa search gareyn kartaa qaybta kale hadaan u sii galo maxay postiyada waa qaybtii social media oo kale ahayd imka tusaale ahaan annagu marka hore kamaan xirin si toos ah ugumaan xirin qabyaalada laakiin waan awoodnaa inaan ka xirno taan waxaan u sameeynay oo hore aan ugu xiri weynay in aan marka hore bulshadu inay raali ka yihiin tusaale reer oo kale marka la soo qoro reer waxa laga yaabaa qoys oo kale inay noqdaan marka inaan analysis badan intaan ku sameeyno dhankaasna aan qabyaalada aan kaga hortagno ayaan ugu talagalnay maadaama barnaamijkan social media ahaan loo isticmaali karo wax lagu soo maxay upload gareyn karo tusaale ahaan qoraalka saas isku qarinaya commentiga kale marka qabyaalad wax qabyaalad ama reer aad ku darto saas kale isku qarinaya commentina waad ka bixin karaysaa hadaad u baahato saas commentiga u bixin karaysaa qaybtaasuna waa qaybta maxay haddii marka imika aan u galo
aan u galo qaybta kambaniyada tusaalaan kambani hore aan sameynay qaabku shaqadu u xayeysiinayo kala markaan soo galo mid hore aan sameynaa geli doonaa notificationada soo gaaro aad ila arki doontaan qaabkii ahaayeen iyo qaabku u eegayo portfolioha dadka shaqada soo codsada su'aalahan 7 ayaa ku jira halkaas aad aragtaa notification su'aalahan notification markuu ku dhufto shaqada imika teacher marka hore waa arkaysiin ma filaya shaqa teacher sidaas oo kale magac dheer uu ku qoran inay xayeysiisneed shaqadaasi ayuu wuxuu ku leeyahay 4 qof ayaa soo codsaday 4 notification baa ka soo galay 4 tino waa kuwa su'aalahan waxa oraysa si profile uu oranaya maxay way oranaya halkaas uu kala soconay anu imika horaan barnaamijka ciwaanadan ugu isticmaalay oo imika ciwaankii hore in tusayay ayuu ahaa qofkii shaqadoonka macluumaadkiisii iyagoo maqal iyo muuqaal imika fiidiyoyada sample ahaan ayaan u soo geliyay laakiin qofka wuxuu soo gelin karaa tusaalahan xirfadda gacanta hadduu ku maxay yaqaan graphic designer uu kale yahay ama graphic motion waxyaabihii uu sameeyay ayuu soo gelin karaa tusaale ahaan laakiin anaga sample un baa imika soo gelinay CV-yadiisii ayuu soo gelin karaa tusaalahan CV-ga waa ka tusaalahan shahaadooyinkiisa oo kale ayuu soo gelin karaa ama hadduu abaalmarin hore u guuleystay ama shahaado sharafyo hore u qaatay waxaa macluumaada marka waxay ka caawinayaan in uu ku kalsoonaado HR-ki barnaamijkan anagu waa barnaamij sida Facebook oo kale loo isticmaalayo waa aniga lahaa social media featureska ugu caansan ayuu leeyahay marka dadka xataa waxa weeyaan uu soo jiidanaya aad uu soo jiidanaya maadaama dadka aan la tartamayno ama website-yada aan la tartamayno features badan oo macaamiisheena raali gelinayo aan heesano teeda kale barnaamijkan marka inta aan kaga baxo oo profile-kii wuxuu markaa aragtaan follow uu oran karaa imika hore oo follow u yiri laakiin imika aan follow baan oranaynaa marka waxa uu waa kuwa marka tusaalahan qofkii shirkadda wuxuu imika eegi karaa shaqadaas imika automatic ugu taagan waa shaqadii ugu dambeysay wuxuu gelin karaa shaqooyinkii uu soo xayeysiiyo dhan wuxuuna arki karaa ciddii soo maxay soo codsatay iyo dadkii soo codsaday tusaalahan imika tan oo kale hal notification bay ku taagan graphic design title-keeda sida web designer midda ah saad aragtaan iyadana haddaan search iraahdo waa 0 waxba lagama soo codsan day to day inuu ku eegi karaa waxyaabihii la soo codsaday notification-kii aad baad mahadsantahay waqtiga kaa dhamaaday 5 daqiiqo waxaan filayaa inaad uga faa'iidaysatay isa practical labnaan soo samayso waxaan jecelahay inaan ku sii socono isla markaas inaan sii wadno weli qaybtii practical-ka ahayd waxaan u yeedhi doonaa oo imika barnaamijkan iyaguna kusoo madhigi doono qaybtii practical-ka ahayd ama ay tusay taabsii kooxda Westtouch ay jecel halkan inay yimaadaan kadibna ay nala wadaagaan bal nidaamkii isbitaalada iyo caafimaadka uga shaqeynayeen iyo hanaanka xogta ay u sameynayaan oo soo dhaweynayaa bismillaah waa kan application-kaygu halkan ka bilaabmaya marka halka waxa ku qornaa macluumaad ku saabsan website-ka marka hadda waqti ma hayno laakiin xagga waxa waa user-iska xagga ay ka galiyeen feature-kii user-iska ka galayeen marka user-iska gareyn kara application waxa weeye waa 5 user weeye waa 3 la tacalluqa caafimaadka x-ray-gii medical test-gii iyo pharmacist-gii iyo qof online appointment ka shaqeeya iyo qof death and burial diiwaan galiya marka hadda waxaynu ku galaynaa administrator baan ku galaynaa marka dashboard-ku waa kan ugu horeeya halkan waxaan isku dayaynaa hadda inaan patient diiwaan gelino inaan death iyo burial diiwaan gelino inaan disease diiwaan gelino intaas isku dayaynaa marka waa arki kartaan halkaas waa accounts-ka administrator iyo user markaa sameynayso xaggana waa patient cusub markaan diiwaan gelino xaggana waa death and burial markaan diiwaan gelino xaggana disease markaan diiwaan gelino wey xaggana backup baa data ka qaadan karnaa waxaan isku daynaa patient inaan diiwaan gelino oo codsiyada dirno 4 codsiin 3 codsiin aan dirno intaas marka patient-ka datadana laga buuxinayaa datada waa data dhameystiran weeye waa waxa inta badan ay dhakhaatiirtu ka buuxiyaan marka qofka phone number-kiisa halkan lagu qori karaa ama number isaga u sira oo gaara oo hadhow uu datadiisa lagu search gareyn karo marka tusaale ahaan oo kale number baynu gelinaa magac baynu gelinaa marka macluumaadkaasna waa macluumaadka inta badan ay dhakhaatiirtu ka buuxiyaan patientiska marka hadda maadaama waqti u hayn intaas baynu ku joojinaynaa marka datada badankeedu waa optional u dhakhtarku ka baari karaa hadduu ka baarin yani datadaas oo kale hadduu ka baadin ama qodobkaas oo kale hadduu ka baarin iska dhaafi karaa waa wada optional wey maadaama inta badan dhakhaatiirtu kama wada baaraan safe aan odhanaynaa marka datada waa tan kii u dambeeyeen diiwaan gelinay waa kan marka waxaynu u sort gareyn karnaa date modified oo kale waa u sort gareyn karnaa lambarkii patient-kii ugu dambeeyeen diiwaan gelinay baa halka soo dhigmi kara marka halkaa waxaad ka aragtaan complaints wuxuu ka codsan karaa 3dii ama x-ray ama medical test ama pharmacist buu codsan karaa halka update buu ka sameyn karaa datada
halkaa view buu ku samayn karaa, halkaa print datadii buu soo daabici karaa. Marka hadda waxa ugu muhiimsan aan xooga saarna waxa weeye inuu dalbado in X-ray oo kale laga soo qaado ad complaint baan odhanaa. Marka halkaa waxaa yaala laboratory request form symbol ah si uu dhakhtarku ugu xasuusto uu symbol ahaan uga qaato. Imika tusaale ahaan oo kale waxaan doonaynaa inaan ka soo baadhno qaybtaa ugu dambeysa BSA oo kale waa dhiigaga inta badan la iska baadho mid ka mid aan filayaa. Markaan waxaan odhanaynaa dhiiggaas oo kale ka soo baadh, dalabkaa waxaynu u diraynaa medical testing u diraynaa, safe aynu odhanaynaa. Marka dalabkaasi waxaynu eegaynaa inuu ku dhacay medical testigii. Marka waxaynu hadda iska dhigaynaa user medical test ah oo kan marka patientisku marka patientkii imka datadiisa laynoo soo diray marka waa hal request buu soo dhigaya marka requestigan waa ka hadda aan soo dhignay. Marka requestigaas waa inuu noqdaa dhiiggii imka aan dalbanayna ee BSA ahaa. confirm baan odhanaynaa uu aqbalay requestigaas. Okay, BSA waa dalabka imka uu dhakhtarku inoo soo dalbaday uu yidhi yacni BSA ka soo baadh patientkaas. BSA iyo kale tusaale ahaan waan ka baadhnay, resultigiisii baan halkan ku qori karnaa. BSA resultigiisu tusaale ahaan oo kale saas oo kale ayaan ka dhigaynaa. wixii commenti oo kale halkan uu ku qorayaa, wixii total amount uu halkaa patientka lagaga qaaday yacni dhiig baadhista lagaga qaaday xaggaas ayadna lagu qoraya. sayfaynu odhanaynaa daatada markaa saasay ku safe garaysmatay. waxaan hubinaynaa markaa inuu dhakhtarkii daatadaas ay u noqotay oo dhakhtarkii daatadaas u helay. Marka haddana waxaan iska dhigaynaa dhakhtarkii oo kale kan patientkii view data baynu odhanaynaa. marka daatadiisii weeyi daatadan wada bannaan waa daatadii markii aan iska daynay weeye aanan buuxin. waa requestigii oo laga soo jawaabay oo dhammaystiran. marka symbol baan xabadda kaliya ka soo qaadanay. marka macluumaadkoo dhammaystiran buu dhakhtarku dalbanaya, macluumaadkoo dhammaystiran baa looga soo jawaabaya. marka jawaabta marka uu helo dhakhtarku halkaasuu go-aan ka gaaraya ama dawooyin ugu qoraya ama uu disease ku magacaabaya, saasayna daatadiisa ku galaysa. marka waxyaalaha kale administrator oo kale markaan doonayno, administratorka haddii aad gasho passwordku waa encrypted lama arki karo. intan ma ahan pinkiisu waxa weeye waa admin weeye, laakiin marka user ahaan aad ugu jirto ma arki kartid oo wuxuu soo dhigayaa kaas aanan jirin. aad iyo aad baad mahadsantihiin kooxda Westage. waxaad ka faa'iidaysateen waqtiga aad haysateen, waxaa idinka dhammaaday 5 daqiiqo. waxaan rajaynayaa in badan xogta aad bixiseen practical aad bulshada ula wadaagteen. barnaamijka tartanka hal-abuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii xisaab badnaa tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarta hal-abuurka leh. waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubnaha guddigooda waqtigeeda qaaligaana siiyey iyo dhammaanba ka qayb qaatayaasha barnaamijkan sida tooska ah idinku tabiyey sawirada iyo muuqaalada quruxda badan iyo guud ahaanba intii tartanka uu socday aqoonyahankii kala duwanaha ka qayb qaadanay barnaamijka. habeenkan cawaamo waqtigan barnaamijka groupkii iyadii kala duwanaha ka qayb qaadanay waxay ahaayeen Elite Software, Job Charters iyo Westage. waa 3 team oo soo bandhigay runtii barnaamijyo aad u qiimo badan. halkan hortiina waxaa fadhida xubnaha guddida, waxay mareen dhammaanba istiijadii kala duwanaa 3daasi gruuba ee ahaa qaybtii hore ee bandhiga iyo difaacashada barnaamijka ay wadeen iyo su'aalihii kala duwan inay ka jawaabaan oo ahayd wejiga labaad iyo tii saddexaad oo ahayd qaybta practicalka ee tusoo taabsi. waxaan imika taagayna waa gunaanadkii barnaamijka iyo in mar saddexaad aan qiimeyno. waxaan u wada yeedhi doonaa halkana iman doona dhammaanba 3da group ee Elite Software, Job Charters iyo Westage. halkana jecelahay inaad timaadaan. waxaan idinku soo dhaweynayaa stageka. soo dhawaada. waxaan aad u soo dhaweynayaa inaad nasiib u heshaan inaad ka mid noqotaan tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda sanadka 2021 iyo inaad ka mid noqotaan dhalinyartii halkan ku tartamaysay oo runtii ahaa dhalinyarooda aqoon-yahana runtiina soo bandhigay barnaamijyo iyo barnaamijyo aad u qiimo badan kuwaasoo ahaa qaar ay hindiseen islamarkaasina hal-abuurkooda ay sameeyeen. waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin bayna halkaa kaga daalin oo aad sii wada doontaan islamarkaasi aad sii abaqaadi doontaan. gruub walba qof ayaan ka siin doonaa. waxaan jeclay inaan weydiiyo aragtida barnaamijkan iyo habeenkan caawa tartanka adag ee idin dhexmaray 3 gruub sida aad u aragtaan. waxaan kusoo dhaweyn doonaa kooxda horeysa ee dhinaca taagan ee Westage. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa maxamed cumar cismaan. barnaamijkan aanu waxaan u arkaa horta barnaamij aad u wanaagsan oo dhalinyarada dhiirigelin aad u weyn siinaya. waxaan filayaa inuu yahay barnaamij dhiirigelin siinaya dhalinyarada IT-ga oo kale. micnaha anagu markaanu IT ka soo baxnay programming aan soo baranay, programmingkana way fahmayaan dadka IT-ga coding iyo waxba la isticmaalaya.
codingkaas iyo hawshaasna waxa weeye wax markasta inaad practical la sameeyo computerka la dul fadhiyo u baahan qofkii markuu arko tartamo noocana iyo inuu wax uu ka faa'iidi karo oo wadanka ka helo oo ka heli karo wuxuu ku dhiiranayaa inuu programmo kale soo sameeyo kuwii hore uu hayayna uu develop gareeyo sidii uu ku soo saari lahaana uu falweeda qabto aad baad u mahadsantahay waxaan u dhiibayaa mid kaloo ka mid ah kooxda Job Chatters dareenkaaga iyo barnaamijka saad u arkaysay iyo saaxiibadaadii kale kula tartamay wax bandhiga ay sameeyeen run ahaantii barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamijyada wax ku ool kale maxay ahayd tolay waa nin soo aad iyo aadna waan u soo dhaweynay marka horena kuwanoo kalena insha allah waxaan rajaynaynaa in aanay halkaa lagu joojin doonin oo barnaamijyo noocan oo kale ana maxay tolay la qaban doono run ahaantii waa barnaamij awoodda dhalinyarada taabanaya amba maxay tolay juhdiga amba waxa ku jira maskaxdooda ay ku soo bandhigi karaan waa barnaamij aad iyo aad soo dhaweynayo run ahaantii anaguna mawduucan aan wadanay haddaanu guulaysanay haddaanan guulaysaninba horta waa barnaamij halkaa kaga hadhi doona ma noqonayo barnaamijkeyguna kuma eegaan doono wasaarad keliyata amba dal keliyata marka wuxuu noqon doonaa insha allah mid aanu adduunka oo dhan aanu ku rajino weynahay inaanu gaarsiino aad baa mahadsantahay haddaan markaa ku guulaysanay adii walbana waan hambalina saxbaday waa tahay ugu dambeyntii alert software waxaan jeclahay inuu gabagabadii barnaamijka qiimeyntii u dambeysay marayna dareenkaaga aad barnaamijka la wadaagto بسم الله إلهي ما هذا كلام مرة هراء الناس ورتقلي إنه نقب سبت حفلة سو كلا واحد نلقى نوع مليان يا أصحاب تدا قاليا هاوشان وضبطنا سيد عبد الله حبيبيو عبد الرحمن أحمد قودن وحنا لا يقول برتشينه daawadayaal waxaynu taaganahay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijkii xisaabadnaa tartanka halabuurka teknolojiyadda waxaan aad ugu mahadnaqayaa xubnaha guddiga halka fadhiyey professor ar oo gudoomiyaha guddiga waxaan dib u eegi doonaa labadii qiimood ee hore stageska sidii ay helaan si bulshada ay u ogaato dhibcahaasi iyo sidii isu kordhayeen iyo marba wixii kusoo kordhay waxaan eegi doonaa kooxda Westage ayaan jecelahay inaan eego labadoodii qiimood ee hore qaabkay u heleen mar waxay ku guuleysteen 200 oo dhibcood halka markii labaad ay difaaceen barnaamijkoodana ay ku guuleysteen isla markaasina ay gaadheen 215 dhibcood waxaan u rajaynayaa inay guuleystaan waxa hore qiimeyntii saddexaad oo ah tii practical kayd oo rajaynayo in kulay dhibco soo biri doonaan kooxda labaad ee Job Chatters iyana qaybtii hore ee qiimeyntii horeysay ama bandhigii hore waxa iyaguna sidaas si lamid ah heleen 200 halka markii dambana ay 5 kor u yar dhaafeen kooxdii ka horeysay oo ay gaadheen 220 iyana sidaas si lamid ah waxaan rajaynayaa inay guuleystaan oo qiimeynta saddexaad ay dhibco badan ku kordhi doonaan Elite Software ayaan jecelahay in iyana aan idla wadaago qaybtii hore waxay heleen bandhigii horeeyba 255 halka markii dambana heleen 267 saddexdiina waxaan rajaynayaa inaad guuleysataan waxaan markan ku wareejin doonaa guddigii kala duwanaa halka fadhiday in dib laydii qiimeeyo bal wixii dhibcii hore iska bedelay iyo waxa soo kordhay kooxda Westage waxaan jecelahay xubnaha guddiga halkan fadhida waxaan anagu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa waqtigiina qaaliga aad bixiseen in mar saddexaad aad qiimeysaan markii aad aragteen practicalka ay sameeyeen iyo wixii ay soo bandhigeen Cabdirashiid waan ka bilaabi doonaa markii aan arkay demonstrationkii ay Westage samaysay qiimeyntaydii hore 5 baan ka jaray 55 baan siiyey waa tahay cabdiraxmaan cali xirsi kooxda Westage markii ay isdifaaceen barnaamijkooda aad aragtay maxaa soo bandhigay practicalka maxaa ku kordhisay maxaa iska bedelay aragtidaadii hore saddex baan ugu daray saddex kala kor ugu dartay waa tahay engineer Farxaan Aadan runtii barnaamijku waa barnaamij aad u wanaagsan teamkuna shaqo aad wanaagsan bay qabteen anoo rajaynaya inay user interface-ka wax badan ka bedeli doonaan sidoo kale waxay muuqanaya passwordkii oo plain text ah ka qudhisay in la hash garayn karo markii hore 50 baan siiyey 5 baan ugu daray 55 aad waa mahadsantahay ugu dambeyntii Dr. Idris kooxda Westage maxaa iska bedelay dhibcii hore aad bixisay kooxda Westage waxay soo bandhigeen barnaamij aad u qiimo badan walibana xanuunada waxay qaybta xanuunada oo kale dhakhtarka oo kale u tilmaamayaan macluumaadkaas oo kale waan ku hambaleynayaa inay brief siiyaan dhakhtarku inuu xanuunada qayb ka mid dooran karo marka qiimeyntooda waxba iska bedelay waxaan ugu daray 7 aad baad mahadsantahay waxaan rajaynayaa durtooyna kor soo kaceen dhibcii ay haysteen waxaan eegi doonaa saaxiibadooda kale ag taagan iyaguna kooxda Job Chatters markii ugu dambeysay waxay haysteen 220 waxaan ka bilaabi doonaa dhexda Cabdiraxmaan Cali Xirsi maxaa kooxda qiimeyntoodii aad ku kordhinaysaa waxaan ugu daray 2 aad baad mahadsantahay engineer Cabdirashiid Maxamed
inkastoo barnaamijku yahay barnaamij aada muhiim u ah haddana waxaan arkayay in xoogaa shaqo u dhiman tahay sidaa awgeed konton baan maxaan aday siiyey oo 5 baan ka jirtay 5 baad dib uga jartay waa tahay doctor Caydaruus Maxamed kooxda job charters barnaamijkooda horta waa barnaamij aad u wanaagsan laakiin taladan siin wax weeyaan wixii comment ah iyo wixii talahaan la siiyo waxa fiican waa constructive waa wada dhisaya maaha istifaac qof inuu galo marka taas wax weey waa talahaan marka waxaan natiijada hor ku darayaa 6 waxay noqon doontaa 60 aad iyo aad waa mahadsantahay ugu dambeyntii engineer Farxaan Aadan runtii barnaamijku waa barnaamij aad u fiican waxaan rajaynayaa inay target gareynayaan inay Facebook Twitter يعني social media applications wax la mid ah inay mustaqbalka ay sameyn doonaan barnaamijku waa data intensive waxa la oran karaa waxa weeyaan bandwidth hungry wuxuu u baahan yahay bandwidth badan way qofka kaliya waxa laga qaadaya certificate-kiisii waxa laga qaadaya video iska duubay waxa laga qaadaya CV-giisii marka inaad ku tala gashaan storage-ka insha Allah mustaqbalka aad meeshaad hosting-ka diganaysaan inaad ka heli kartaan space fiican sidoo kale ku tala gashaan dadkeenan internetku aanu yar fiicnayn maadaama video image waxyaabo badan upload gareynayaan taa qudheeda inaad focuska yar saartaan markii hore 60 baan siiyey 5 baan ugu daray waxaan rajaynayaa inaan bari dhow arki doono iyadoo caalamka dhan laga isticmaalayo systemkooda aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin xubnaha guddida qaabkaad u qiimaysan iyo sidaad u soo gunaanday qaybtaasi labaad waxaan rajaynayaa waxaa hadhay kooxdii u dambeysay oo ahayd kooxda Elite Software waxaan ku bilaabayaa doctor Caydaruus kooxda Elite Software maxaa iska bedelay ugu dambeyntii ama qiimayntii u dambeysadaysay markan eegay systemkooda iyo siday u soo bandhigeen iyo macluumaadka waliba faraha badan ee khudaarta ku saabsan iyo ascaarta natiijadii hore waxba iska bedelay laakiin intaan natiijadan cusub aan sheegin talahaan waxaan siinayaa ascaarta khudaarta haddii isbedesho kale qofka taloo kale customerka ama consumerka inuu message helo kale inuu helo kale in systemkiina aad ku dartaan oo kale ayaa soo jeedinayaa marka markiskan ugu daray waxay noqonaysaa 3 aad baad mahadsantahay engineer Farxaan waxaan ku horeynayaa xagga recommendationska waxaan arkayay marka la qorayo khudaarta magaceeda in toon ama basal gacanta lagu qorayo waxa laga yaabaa in siyaabo kala duwan loo qoro marka hadhow maxaa toon ku jira systemka lama heli karo marka maadaama khudaarta la yaqaano ka dhiga drop down meel la dooranayo sidoo kale nooceeda tusaalahaan waxaad qoraysaan saxaarad taana siyaabo kala duwan baa loo qori karaa marka maadaama aad garanaysaan yani miisaanada kala duwan ay leedahay kiish saxaarad kuwaana inay drop down noqoto user interface-ka ama muuqaalka systemka inaad dib ugu noqotaan taasina waa iga talo markii hore waxaan siiyey 65 laban ugu daray 67 waa tahay engineer Cabdirashiid Maxamed kooxda Elite Software maxaad iska bedelay natiijada hore siisay kooxda Elite Software waxay xalinayaan problem runtii baahi weyn loo qabo oo ah dadkeeni beeratada ahay waxay iibinayeen platformka ay soo bandhigeen waxaan isleeyahay waa platform lagu faa'iidi karo wax badan ka bedeli kara qiimaha iyo ma garanaysaa faa'iidada ay heli karaan dadka beeratada ahi waxay ina tuseen qaybtii webka waxaan jeclaan lahaa inay ku daraan qaybtii mobile appka sidoo kale inay barnaamijka maxaan rahday dib u habeyn fara badan ku sameeyaan marka waxaan siiyey 60% aad waa mahadsantahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxaan ugu daray 5 baan ugu daray waa tahay waxaan rajaynayaa inta barnaamijka daawanaysa ee warbaahinta iyo telefishinada ka daawanaysa si toos halkaas ay ula socdaan dhabcaha si ay isu bedelayeen sidoo kale guddiga iyo dadka kale goobjooga laftigooda waxaan rajaynayaa iyana saas isla mid ah arkayeen iyo dhammaanba tartamayaashii oo garabkayga taagan oo iyaguna la socda shaashada ka muuqata halkan
iyo dhibco sida isu bedelayeen dhammaantiinba waad ku bogaadinayaa inaad soo bandhigteen barnaamijyo xiiso badan waxaan jecelahay xubin ku hadli doonta afka guddiga in ay ku dhawaaqdo guulaystaha habeenkan caawa saddexda kooxood ee Westage Job Charters iyo Elite Software cabdiraxmaan cali xirsi ayaa afka guddiga ku hadli doona kuna dhawaaqi doona kooxda ku guulaysatay habeenkan caawa waay bismillahi raxmaani raxiim dhammaan kooxaha caawa halkan ku tartamay waanu wada bogaadinaynaa anoo ku hadlaya afka guddiga ee qiimeynta waayo waxay runtii na gelinaysaa yididiilo in dad dhalinyaro ah oo waddanka wax ku bartay intay baahiyihii bulshadeenu qabtay ka fikiraan inay haddana ka fikiraan inay sameeyaan barnaamijyo tiknolojiyadda casriga la socda oo haddana xalinaya mashaakilaadkoodii saddexda runtii barnaamijba aad bay u qurux badnaayeen mid walibana mushkilad bulshada maaragtay haysata ayuu xalinaya waxaanan qabaa haddii dhammaantood la wada maalgeliyo oo la isticmaalo inay mashaakilaadka ay xalinayeen maaragtay bulshada wax badan kusoo kordhin doonaan iyo dowladdaba tartanka yani caadada tartanka ama sunnaha tartanka wuxuu yahay iyadoo la wada guulaystay oo la wada dadaalay haddana inay cidi uun maaragtay extra mile ay sii yar cararto oo maaragtay inuun ay ka dheeraysa inta kale sidaa daraaddeed ayaa caawa halkan waxaa ku guulaystay kooxda Elite Solutions saaxib kutuma aad baan u bogaadinaa aad baan u hambalyeynaa kooxda Elite Software iyo sidoo kale labada kooxood kale Job Charters iyo Westage oo runtii dhammaantoodba soo bandhigay barnaamijyo aad u qiimo badan waxaan rajaynayaa in aad u tagi doontaan kooxda caawa soo baxday kooxihii kale hore u soo guulaystay oo weli tartanku u maraya meelihii ugu xisaab badnaa iyo qiimeynihii ugu xisaab badnaa sidii barnaamijka caadada u ahayd waxaan jeclay isku dubaradaha barnaamijka ahna guddoomiyaha guddiga qiimeynta iyo kala saaridda tartanka halabuurka teknolojiyadda 2021 Professor Mubarak Ibrahim Ar inaan kelmadiisa siiyo ku soo dhow Professor bismillahi raxmaani raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u mahadnaqaynaa ugu horeynta ka bacdi waxaan runtii aada ugu mahadnaqaynaa wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda waxaan kaloo u mahadnaqayaa Premier Bank waxaan sidoo kale runtii aan u mahadnaqaynaa guddida qiimaha badan ee halkan inala joogta oo runtii waqtigooda oo aada u culus inoo soo horay inay hawsha nagala qayb galaan oo iyagoo ah runtii ah injineerada dalka marka laga ICT marka Soomaaliland laga hadlayo markaba waxa kugu soo dhacaya ragga halkan fadhiya marka iyaga si gaar ah ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa ardaydan ama tartamayaasha qiimaha badan ee barnaamijyada aadka u fiican runtii caawa inoo soo jeediyey waxaan qabaa dhammaantood inay guulaysteen dhammaantood howlo aad u wanaagsan ay soo bandhigaan ciddii ku guulaysatana runtii waa inuu haynaynaynaa barnaamijkeenu runtii caawa halkaas inoogu xidhan yahay aad iyo aad buu mahadsanyahay Professor Mubarak Ibrahim Ar waxaan daawadayaal soo gaarnay gabagabadii iyo guntii barnaamijka tartanka halabuurka teknolojiyadda ee sanadka 2021 waxaan u mahadnaqayaa Professor Mubarak Ibrahim Ar oo isku dubaradaha iyo guddoomiyaha guddiga kala saaridda aqoonyahanka sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa Dr. Cabdiruus Maxamed Ibrahim Engineer Farxaan Aadan Haruun cabdiraxmaan cali xirsi iyo injineer cabdirashiid maxamed ismaaciil dhammaantood baa adnaa guddiga u hambalyeynaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa sawir qaadayaasha kala duwan ee halkan inagula sugan oo dhammaantoodba u hagarbaxayn si qurux badan ay u soo tabiyaan muuqaalada lagu talagalay in warbaahinta kala duwan laga tabiyo waa dhammaanba bahda barnaamijka halabuurka teknolojiyadda ee sanadka 2021 ku dhaafayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka teknolojiyadda ee sanadka 2021 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca surqaadii isku dubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qayb qaatay ilaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye in la baahiyaayo la ballaadhiyaaye